lacag, horumar, guur, isbedel iyo weliba xiriir waa waxyaabaha ugu badan ee qofku markuu dhalinyarada yahay maskaxdiisa mashquuliyo. Saasoo ay tan waxa laga yaabaa si maskaxdiisa ay ugu mashquulsan tahay xiriir ama waxbarasho ama lacag ama shaqo ama isbedel waxa laga yaabaa waqtiga inuu ka lumo. Haddaba waxaasi wax ka muhiimsan baa jira. Hayga fogaanay fiidiyoga ayaan kula wadaagi doonaa. Sodow wasaaxibka Shahid Bithani badanaa marka aad dhalinyaro tahay waxyaabaha ugu badan ee maskaxdaada ku soo laalaabto ama laga sheekeeyo ama fikradaha dadka ay iswadaagaan waxa ugu badan waxa ay tahay qofku inuu ka fikiro horumar, isbedel iyo waliba lacag, shaqo, xiriir, waxbarasho intaasi oo dhan mar walba maskaxdiisa ay ku soo laalaabato. Saasoo ay tan waxa laga yaabaa waqtigu inuu ka lumo ama waxba uu gacanta ku soo qabo waayo. Haddaba halkee wax ka qaldan yihiin? tusaale yar baan kula wadaagayaa marka hore oo aan kugu fahansiinayo muhiimaddu lacag ma aha, muhiimaddu guur ma aha inaad ku degdegtid, muhiimadduna ma aha marka koowaad waxbarasho, muhiimaddu ma aha marka koowaadba inaad isla markii ku fikirtid sidee loo horumariyaa naftaada ama sidee isku beddeshaa. Muhiimaddu waxa ay tahay marka horeba inaad ogaatid waxa lagaa raba adiga. Tusaalaha koowaad aan soo qaadanaya waxa ay tahay badanaa qof walba oo marka aragtid wuxuu ku leeyahay nolosha horumar inaan ka gaaraa rabaa, inaan isbedelaa rabaa, inaan wax qabsadaan rabaa. Saasoo ay tahay markii isbedelka ay bilaabaan 2 maalin 3 maalin markay wadaan isla markii way joojinayaan. Halkee wax ka qaldan yihiin? Wax ka qaldan yihiin waxaad fahmin wax marka lagaa rabo. Waxa lagaa raba maxay yihiin marka? Tusaale soo qaadanaya weligaa faras ma kaxaysay ama dameer. Haddii aad faraska aad kaxaysay ama dameer aad kaxaysay adiga iyo faraska waxa idin dhaxeeyo wax hoggaan la yiraahdo ama adiga iyo dameerka waxa idin dhaxeeyo wax la yiraahdo hoggaan. Hoggaankaasi gacanta haddaad ku haynin xarigaas haddaad gacanta ku haynin waxa dhacaysa dameerkaasi ama faraskaasi meeshuu rabo inuu kula galo ama aad ka faniintid. Noloshuna waa sidaas oo kale. Haddii adigu aad naftaada hoggaanka aad haynin oo aadan garanaynin sida hoggaanka loo qabto way adkaanaysaa sida lacagta aad daris ula noqotid, wayna adkaanaysaa sida guurka aad ku haminaysay ama waxbarashada aad ratay sida aad ku heshid ama horumarka aad doonaysay inaad samaysid way kugu adkaanaysaa. Sababta waxa ay tahay hoggaanka naftaada ayaad fahmin. Hoggaanka nafta maxay noqon kartaa? Waxay noqon kartaa waxa u dhaxeeya jirkaaga iyo maskaxdaada ayaa la yiraahdaa hoggaan. Haddii maskaxdaadu ay rato si gooni ah, jirkaaguna uu rabo inaad sariir saarnaatid ama meel aad fadhisid, labadaasi shaqada ay wada shaqay lahaayeen waxa dhacaysa in maskaxduna gooni u shaqayso, jirkuna gooni u shaqeeyo. Haddii jirkaaga iyo maskaxdaadu ay isfahmaynin markaas waxa dhacaysa in wax walba aad ku hamisid ama wax walba aad gool ka dhigatid ama hadaf aad ka dhigatid inaysan ku rumoobin. Sababtuna waxa ay tahay jirkuna si buu u shaqeynayaa gooni ah, maskaxduna si gooni bay u shaqeynaysaa. Jirku ficil buu rabaa, maskaxduna waxay rabtaa fikir. Haddii fikirkaasi ficilkaasi ay wada shaqeynaynin, jirku meel buu saarnaanayaa, maskaxduna gooni bay u shaqeynaysaa. Tusaale ahaan markii dhiirigelinta laga hadlayo, horta waa maxay dhiirigelin? Isweydii meeqa loo qaybiyaa? Dhiirigelin ma u baahan tahay maanta? haddii aad isweydiinin waxa dhiirigelin la yiraahdo ama aad isweydiinin inta loo qaybiyo waxa dhacaysa dhiirigelin walba inaad iska daawatid kadibna adiga aad ku wareertid. Dhiirigelinta laba loo qaybiyaa, mid maskaxdaada dhisaysa iyo mid energy ku siinayso. badanaa waxaad iska ilaalisaa tan energy ku siinayso. Sababta waxa ay tahay jirkaaga maskaxdaada haddii sa diyaar u ahayn inaad wax qabatid aysan qorshe aadan haysanin oo aad sariir iska saaran tahay, haddii aad dhiirigelinta energy-ga daawatid maskaxdaadu way shaqaynaysaa, wax ma qabatid, meesha ma ka kacdid, haddana waxba kuma qorshaysna, waxaad qabatid ma taqaanid. stresska kugu badanaya marka dambana waxa saalanaanaysa in aad waalatidbo. badanaa waxaad iska ilaalisaa dhiirigelinta labada loo qaybiya. marka hore waxaad ku dadaashaa tan maskaxda inaad dhistid. maxaa u baahan tahay maanta? qorshe u baahanahay. qorshe halkee ka helaya? dadka qorshaha soo bandhigo waa kuwaasi raadi, laakiin kuwa kac istaag wax qabso ku dhahaya aadan ogeyn waxa aad qaba lahayd taa macnaheedu waxay tahay in energy siinaysa. energy-gaasina wuxuu soo marka dambe in adigu meel cidla aad ku soo dhacdid oo marka dambe aad aragtid adoo isla sheekaysanaya ama adoo madax xanuun dareemayo. dhiirigelinta qaylada ama awoodsiinta waxa loogu talagalay qofka markuu u gym tagayo oo kale kac meesha ka kac wad kor u qaad waxa sameey oo kale markii lagu dhahayo taa macnaheedu waxay tahay in dhiirigelin lagu siinayo si birta aad si fiican u sii qaadid. ama markaas qorshaha hadii ku degsan yahay oo aad sariir saaran tahay qofka kac markuu ku yiraahdo qorshahaaga waa ogtahay isla markii waa raacaysaa, isla markii wixii ku qorshaysnaa baad qabanaysaa. laakiin ayadoona qorshe ku qorshaysnayn haddii aad isla markii inta dhiirigelin daawatid kac lagu dhahayo ee aad kacdid taa macnaheedu waxa ay tahay inaad daaqada ka bixiso, daaqad iska tuuraysid. marka hore qorshe samayso. qorshahaasina waxa ku sahlaya hoggaan inaad leedahay. hoggaankuna wuxuu uu ka yimaadaa marka aad tababartid jirkaaga iyo maskaxdaada way isfahmaan. jirka iyo maskaxda markay isfahmaan, jirka diyaar wuxuu u noqonayaa inuu intuu kaco wax qabto, maskaxdana waxay diyaar u noqonaysaa inay wax amarto. laakiin haddii maskaxda kaliya wax amrayso jirkana uu diyaar u ahayn,
haddii isfahankaasi uu meesha ka baxo waxaa dhacaysa in hogaanka uu meesha ka baxo hogaanku meesha hadduu ka baxana waxaa dhacaysa inaad meel cidlaa ku dhacdid sida qofka markuu faraska saaran yahay oo kale faraskaasi haddaad hogaanka sii daysid faraska haddii uu dheereeyo waa ka dhacaysa haddaadan xariga aadan u qaban aadan breega qabanin oo aad celin ama aadan leexinin haddii aan maanta ogaanay noloshu inay hogaan tahay hogaankuna uu yahay in laiswaafajiyo ama laisfahansiiyo maskaxdii jirka sidee markaa loo hirgeli karaa sida ugu fudud loo hirgeli kara waxa ay tahay inaad qorshe qoratid maalintii waxa aad qaban lahayd subaxii aalsida markaas aad u soo toostid inta aad wax kala qabanin salaada marka aad tukatid kadib qoro waxa maanta qaban lahayd qorshayso maalintii markay ku dhaafto habeenkii kale markii la gaaro dib u fiiri waxaad soo qabatay iyo waxaad qaban weyday wixii aad qaban weyday su'aal iska weydii sababta aad u qaban weyday ma waqtiga kugu yaraa halkii waqtiga ku lumisay kadibna maalinta kale ha ku ahaato meesha aad shalay waqtiga ku lumisay inaad mar labaad ku luminin sidaas ayaa waxa ku hagaagmaya hogaankaaga markaa heshine wax walba markaas noloshaada u baahneed haddii wax barasho noqon lahayd iyo haddii guur noqon lahayd iyo haddii xiriir noqon lahayd iyo haddii lacag noqon lahayd waxay noqonaysaa mid hortaada timaado kadibna aad wadadii u raacdid dadka dunida ugu daajirsan haddii la yiraahdo lacagta ka warrama waxay ku leeyihiin lacagtu muhiim ma aha lacagtu way dabooli kartaa baahiyo gooni ah bay leeyihiin laakiin lacagtu muhiim ma aha muhiimadda koowaad waxa ay tahay qofku inuu hogaan helo qofku markuu hogaan helana way u sahlanaanaysaa qofkaasi in noloshiisu ahaato mid uu ku qanacsan yahay dadka taajiriinta marka la wareysanayo kama hadlaan lacagta ee waxay ka hadlaan wax markaasi iyaga ay joogteeyaan ay ku celceliyaan haddii aad waxaasi joogteysay oo aad ku celcelisid oo aad ku farxdid wixii aad ku celcelisay oo aad joogteysay waxay ka mashquulinaysaa waxyaabo tiro badan oo markaasi kugu sababi lahaa inaad walaacdid ama aad murugootid ama aad ka fikirtid waxa ay ku shaqeeyaan jadwalkaasina wuxuu u sahlaa sida hore idinkugu sheegay hogaan waxay ku leeyihiin haddii maanta aan wax walba soo gato baahideeda ma dhammaanayso xitaa haddii baahideeda dhammaato wax walba haddaan haysto lacagtina ay guriga taallo waxba markaasi weli rabitaan kale ayaa ahaayo rabitaanka kale ahayane haddii aanan u jeedin ama aanan arki karin taa micnaheedu waxay tahay inaan ku noolahay murugo iyo walwal sida ay sheegeen lacagtu mar bay muhiim tahay markay muhiimka tahay waa marka baahiyaha ay daboolayso laakiin mar walbaba haddii aad lacag ku fikiraysid taa waxaa ka horrayso inaad hogaan heshid ballanteenu waa hogaanka nafteena inaan marka hore helno inta aan ku fikri lahayn waxyaabo aan soo qaban karin videogan aad ka heshay si xushmad leh waxaan kaaga codsanayaa asxaabtaada inaad la wadaagtid haddii aad ugu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad ii saartid wixii fikirkaagana commentiga waad igula wadaagi kartaa meel walba dunida ka nooshahay waa saaxiibkaa Shaahid Bizaani ku dhahaya nabad ku noolow. Assalaamu calaykum.